nabiga lagu saliyaa oo mid ka mid ah acmaasha saalixaadka ee Rabbi subhanahu wa ta'ala loogu dhawaado siiba maalinta jimce ee maalinta ugu fadli badan usbuuca waxyaalaha la sunneeyay ee fadliga ku heshay waxa kamid ah in nabiga kaleey salaatu wasalaam la joogteeyo saligiisa aayadda quraanka waxay muujinaysaa fadliga uu leeyahay ku salinta rasuulka suuratul ahzaab Rabbi subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا إلهي يا ملائكتيسو waxay ku salinayaan nabiga duulka iimaanka laga helayo idukuna ku saliya rasuulka in badan xadiiska nabiga sallallahu waxa uu ku leeyahay qofkii hal mar igu saliya ilaahay ayaa isagana waxa uu ku salinaya 10 jeer waa hal mar hadda xadiiska nabiga sallallahu waxa uu leeyahay bakhaylku waa midka agtiisa la igu xuso ee igu salin waaya لما أنا حديث سو إسبيرصداي waxay ka turjumayaan oo ina tusinayaan muhiimadda ay leedahay in lagu saliyo rasuulkeena naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee adoo maasan tahay nabi sallallahu alayhi wasallam igula sali muuqaalka nasiifaafi sayno ajarka wada qaybsano